ducadiisi waxa kamid ah nabigeena sallallahu rabbi wasallam alayhi raadka labada ka dhashay dadaalka ay kugu dadaalayaan inay wanaaga ka reebaan ayaa waxa ka dhalanaya wahsiga ka dhalanaya marna ayagii baa ilaah laga magan galaya marna afarkii ka dhashay wahsiga ah baa ilaahay laga magan galaya markaas nabigeena sallallahu alayhi wasallam ducadiisi waxa kamid ah Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal ilaahu waxaan magan kaaga ahay caajisid iyo wahsi cajzigu muxuu yahay labada kelimo way kala bedelan cajziga waxa la yiraahdaa inaad kari weydaba khayrkii iyo wanaagii awoodba uma haysid tabar uma haysid ta cajzi baa la dhahaa kasalkana maxaa la yiraahdaa waad kari kartaa awoodeedii waad leedahay laakiin ma qabanaysid xoog badana waa qoonta ku jirta oo aqliga ku jira oo kartida ku jirta laakiin ma dalika weel foorara ma toosin karo حاول ما قبل كرتيد ده كاسنا وحلا إله هذا وهسي بالله وكسل لبضب النبي إلهي وكم من قال شيء صلوات ربنا وسلام عليه مرك إلهي الله ينقش وحاول قدام به هذا ضربته هنا وهسي كبحضر هبينك قيب كم ذا توس إلهي الذكر جسي الطاعة كقاضي وحنا بيجينا كسر صلى الله عليه وسلم منه يجي متكين هبينك مركوس ساحضه شيطانكو سدح قنتيمود بقداتك كقنتيا سدح ذا قنتيمود مد والبوحة كشاب بضيصانه وكقراعا هبين دير باتشري اسكسرها هبين كي واولي واجينا مدوا هرب ساعه وكل فني والنبي يقول صلى الله عليه وسلم روحي مهدوس صوكعه انتو نفتي صلى الله عليه وسلم انتو صوكعه أو إلهي حصه لأن مركه هردده لقى سوق عب أذكار باكرت إلهي لو حصه مركه ساء السوق عيب إلهي بحصي سدح دي قنتي مدميت كم إذا فرميس وكسوق عي وويسيستي قنتين تلابات دا فرميس وسوق عي ووتو كذي قنتين تي سدحات با فرميس والنبي صلى الله عليه وسلم مركاسو واغو أبريايا asagoo firfircooni iyo nashaad leh wax qabasho doonaya naftiisuna aad u faraxsanta farax iyo firfircooni isagoo ku jirto buu waagu u bariyaya markaasuu leeyahay warsaaka talo waxaad ku dhaqaajisama waxba ka hor iman karay yani hamliga ku jira xooga ku jira waa faraxsan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam haduu sida yeeli waayo oo waagu u bariyo siduu u hurday sida baqtigii sariirta u saarnaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam marka waagu wuxuu u bariyaa asagoo oo naftiisuna liito oo murugsan oo hamni iyo murugi saaran tahay ta kalena wahsanaya oo isqaadi karinba sidaas daradeed daarto inaad wahsiga ka baxdo oo wax qabato oo xaqiijiso habeenka qayb kamida ilaahay dhikrigiisa iyo taacada ku qaado daawooyinka ugu fiican bay kamid tahay